بسم الله النبضي صومالي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم أجمعين أما بعد waxaad nagala socotaan warbaahinta caanka ah xogsuga media tv oo ah warbaahin ku hadasha afka Soomaaliga soona bandhigta warbixinada ugu dambeeya caalamka maadaama ay tahay maanta maalin jimco ah warbaahintu waxay idin bilowday idina ballan qaad inay taxan idin kaga dhigto barnaamij diimeed aynu kaga hadlayno diinta islaamka maadaama adduunyada iyo diinta aysan kala maarmin sida la ajligeed waxaanu mowduuc ka dhiganaynaa burduhu kitaabka la yiraahdo ama munaaqibka ay Soomaalida u taqaano waa kitaab ay aaminsan yihiin dad badan oo culimada Soomaaliyeed kamid inuu yahay kitaab weyn oo kutubta islaamka kamid ah waxa jira culimo kale oo iyagana culimo Soomaaliyeed oo diidan in kitaabkaasi uu yahay kitaab weyn kuna tilmaamay inuu yahay kitaab shirki iyo buqli uu ka buuxo waxaan rabnaa marka si ummadda Soomaaliyeed ay ku wareertay arinkaasi uga jaahil baxdo in aanu barnaamij ka sameeyno waxaanu soo helnay cod uu duubay fadiilatu Sheekh Maxamed Shible oo uu kitaabka ku durayo sida la midana waxaanu jaanis u helnay inaanu helno shiiqa weyn ee aad wada taqaanaan ee Sheekh Farah Ibrahim oo ah culimo u diinka Soomaaliyeed culimada ugu waaweyn ee qarnigan nool isaga ayaana raba inuu kitaabkaasi difaaco waxyaabaha uu Sheekh Maxamed Shible ku sheegayna raba inuu ka daadifayo dhinac ka mariyo waxaad dhageysan doontaan marka hore codka fadiilatu Sheekh Maxamed Shible waxaana ku xigi doona jawaab celinta sheekha iyaga weyn Sheekh Farah Ibrahim gudniba aqoon baa loo galaa waxa laga yaabaa dhalintayada yar yarka ah ee burdaha aqoonin in lagu tiimado burdahaas maxaa ku jira shirki baa ka buuxa aan qayb idin ka maqashiyo marka أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم أقسمت بالقمر بانقدرتي من حلف بغير الله فقد أشرك ما بغير حديث النبي صلى الله عليه وسلم أقسمت بالقمر بانقدرتي يكون بالنيادي محاكلو كتيرة يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم إن لم تكن في معادي أخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم ومرقم الشرك ويعبيادنا يا أكرم الخلق خلقك كي شرف بنايو مالي من ألوذ به إذا مغنقل ما يستانو عند حلول الحادث العميم مصيبة وين القيامة مركي بحضر إذا مغنقل ما يستانو وسواك أذي أنا هين كذب وحوري لم تكن في معادي آخرها هذا النقن آخذا بيدي قعنت بيدي قبته فضلا أضو يقو أبالي سمينيا وإلا فقل يا زلة القدم هذيك لو حاجة هذا من النار تقول عايو لوكتي سبقتي قده فإن من جودك الدنيا تأخذ محمد أضو أض بحسي وحاكم إذا أدوية داق أضو بحسي إلى باب حيما وضرتي آخرنا داق أضو أض بحسي وراخرية أدوية إسكالي يا بحية وهذا النرشن هي النعمة الأدون كمان محد بينسي مساء الله بينسي فإن من جودك الداق هذه محمد وحاكم ذا الدنيا ذي وضرتها آخره ومن علومك علمك قال لك قاطي علم اللوح والقلم اللوح المحفوظ كان هذا لك عبرتي إلهي علمه اللوح المحفوظ قاد الله قاطي بكاسب نفعنا الله به له مولدنا بعد هذا وحاسدتك لوغا دغي إلهي با لوغو دوين مشر aadi aad baan ugu faraxsanahay la aad buu u mahadsan yahay sheekha intaa waa intii uu sheegay fadiilatu Sheekh Maxamed Shible waxa inoogu xigaya kelimada cajiibka ah ee uu noo jeedin doono fadiilatu Sheekh Farah Ibrahim falyatafaddal sheekhi جزاك الله خيرا
مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. dhammaan dhegaystayaasha iyo ikhwada ku jirto waxa weeyo ee dhegaysanayso labadan TV ee xogsiga media iyo Soomaali baaqir aad iyo aad baan u salaamahayaa. waxaan rabaa inaan barnaamijkayga si toos ah u guda galo. Sheekh Maxamuud Shibli ayaa wuxuu duray abyaad ku jirto kitaabka loo yaqaano burdaha, burdatul madiix, oo uu iska leeyahay imaamkii weynaa oo ka mid ahaa min a'immati ahli sunnati wal jamaaca Muhammad bin Saciid bin Muhammad as-Sanhaaji al-Busuri, imaamkii la dhihi jiray. imaamka isaga oo la dhalay 608 ayay dhalashadiisu ay ahayd. imaamka taariikh dheer buu leeyahay, qasiidadana waxay leedahay arrimo cajiib ah oo waxa weeyaan aan la soo koobi karin, iyo waxay leedahay taariikh cajiib ah ummadda muslimiinta dhexdooda. sheekhu marka waxaa jiray dhowr bayd oo uu ka soo qaatay oo uu aad iyo aad ugu turaanturooday, alfaaddoodina uu aad iyo aad u jajabiyey oo uu ku tuntay. waxaa ugu horreeyey baydka aqsamtu bilqamari almunshiqi ina lahu min qalbihi nisbatan mabruurata alqasami وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي فالصدق في الغار والصديق لم يرم وهم يقولون ما بالغار من إرم. وحود البيت كان أقسمت وحنكون نارني بالقمر من نارا بيت كإسجا أيود وحول الدليل أغسو لكتي من حلف بغير الله وفق كل نارته إلهي غيرك فقد أشرك. وذاتك وحد مدى saddex alaba inay aad uga jaban tahay. tafaasiirta kitaabkeena quraanka alfaada ku jirto waa alfaad u baahan, kitaabka quraanka aayado u baahan baa jiro shay taqdiira ama maqduura oo haddaan wax loo soo qadarin uusan macnahoodu isqabanaynin. wakadalika sidaas oo kale waxaa xadiidka rasuulullaahi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. kitaabkan waa nadmiguna aad iyo aad buu u adag yahay. soomaaliduna waxay tiraahdaa haddii uu carab jabi lahaa qasiidada burdaha la yidhaahda ayuu ku jabi lahaa. shuraxda kitaabka sharaxday laa cadada walaa xisaaba aimada sharaxday wax cadad amale waxay ka mid tahay qasiidada qabuul badan bay wadataa oo aad iyo aad caalamkay ugu faaftay. haddaba beydkan macnihiisu waxa weeye aqsamtu waxaan ku dhaaran bilqamari birabbil qamari, qamarka allihii abuuray baan ku dhaaran. qamarkii almunshiqi ee la kala dilaaciyey in nabigeena dayaxa loo kala dhambalay oo calaamaadkiisi iyo mucjizooyinka ilaahay uu siiyey ayay ka madahay. balaadu fiiriya ikhwati fillah. wadaadku marka waxaad moodaa majahli baa ku xambaaray lafrigii buu hortu burburiyey oo uu ku dhawaaqiba la'yahay oo uu isqabagsiin la'yahay. taa iyana waxay ku tusinaysaa hal baan u dul istaagi inuu sheekhu kaga sugan yahay kitaabkan isaga jahli aan horay loo arag. bal beydkan ila fiiriya dayixi nabiyullaahi maxamed ilaahay u kala dilaaciyey iyo axaadiistii lagaga hadlay ilaa xadada ma doonayno inaan ka hadalno. qof walbo iniga idan ka mid ayaa fahmi, xagga dambaad naga garan doontaa. aqsamtu waxaan ku dhaaranay bilqamari birabbi lqamari, qamarkii rabbigii baan ku dhaaran, qamarkii almunshiqi ee kala dhanbalmay. inta dambe muusan gaarin. aqsamtu bilqamari lmunshiqi ina lahu inay u sugnaatay nebigu min qalbihi isaga qalbigiisa xabigii la jeexay, nebiga dheef intee qalbiga ilaa laga jeexay yaa 3 jeer baa la jeexaa la yidhi nebigeena qalbigiisa sallallahu alayhi wa alihi wasallam, oo xaddu shaytaan laga bixiyey baa lii. ولو علماء الإسلام كبر كمل أتباع أهل بيت ممثلين مدرسة الرسول كتسن صلى الله عليه وآله وسلم لو يقال العلماء الشيعة الربانيين أنه أن كمل نهي أرنتها إيضا عن علة يسألون إن قلبك النبي إنا لجي حبا وما لجي حبا هدين اللي هذا ما زمزم ما لقونا غيدين بمرة حكمة إيا إيادنا اللي يبحي إيادنا وقت يديبا صفي عن لكن بيتك حديث كإساقع كان الله النبي إن لجي حبا قلبك سأيوكو تعلقا بل هذا فيرين إن له إلى أسنات النبي من قلبه نسبة أنا ومغرورة القسم الآتي الوباء إنما فليويان سيدا سوكلوا أيها النبي سيدا أضيح روك الجحمل أي قلبه سنة الله كالجحمل وحقود دارت الشيخ برب القمر والمقدور كقف والبقى شرح كتابك هيو إمام البيجوري شرحي سفيري تمام بفيري حتى محمد أمين الهربي كتاب كيس قصيدة شرح أوساري بلادي يا فيري يا أخوتي في الله تمام والنوع أيضا كو تقديرات كاسو كالو حقوباهن كتاب والبقى شعر أي أوبان ألفية ابن مالك ولفتي سؤال نحواب أوبان
ملحة العراق أيا أباهن دمان زبد ككتابك لو يقال أيا أباهن قصيدة والبقر أباهن تقديرك ما يجرت إخوتي في الله بيتك يسوي أنت أسان كيوجد بوحيل إلتها الشوبد الضعيف كهين وداتكم سؤال وريلي هل كأيا أي كوبا بعض بيتك كلا أودر واحد يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولن يضيق رسول الله ولو بيتك يسجع كتير الحرب فإن من جودك إيو بيتك كلا يا أكرم الخلق وحاول حيو ولن يضيق رسول الله وهو محي فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم وحاول حيو يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولن يضيق رسول الله جاهك بما ودحيو وشيخ وحو يري يا أكرم الخلق خلق إلهي كي أكرام بدنايو أشرف بدنايو إلهي أكدورت مخلوق إلهي لغب الله من ملك الجبريل إلهي وحويا مخلوق إلهي ونم من آدم إلى إن يعد رسول الله محمد ملك ولا ملك مقرب ولا وحويا النبي رسول الله محمد عد لا ترتمي كرتو أو فضيله إيا شرفك إيا عزي إلهي وسيي كلا ترتمي كرتو مجرت يا أكرم الخلق بلا ذخير هذا مركز النبي قال الشيخ صلى الله عليه وآله وسلم أو النبي أنو آدم أردن أولادي سيد كودي أيامه قف كضات كو هذا لنا ضدك أو فصيحة بدن بان هاي النبي أما سيد كودي بان هاي النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا غير هذا يا أكرم الخلق خلق إلهي كي أكرم بدنايو ما لي أنيغا إيما سبنان من قف ألوذ أن مغنقل به من كلا عند حلول الحادث حادث كي سودرين هي مركو يماد حادث كي العميم هي الدنيا ذو قيامها وارون حديث كان كنت على اللغة بالفيل حديث بخاري غير كيف أي ولي قيامها مركي حالو ذاتك وحي آلها يا آدم إلهي ما آلها يا هو هذا آدم أبو البشر باتها وحوي إلا إلهي دم بدافنه ويدي إنه دبات هذا لقد الغاد آدم وحوله ما يا إبراهيم هذا إبراهيم بآله يانو إليه والخليل الله باته إبراهيم وإلهي نوبل وحوله لا ما يا موسى هذا موسى وحوله أنو دبك أيان جيستو كاي أيان هيستو ما يا عيسى آدو له يسور ومسكدري رسول الله محمد بن صلى الله عليه وآله وسلم محي إلهي أو آذي وباين ومدى أما أنتم مغفران من مجرمين با ما مشركين با ولا تقولك وحي كتسين إساء باع وأوليها الشريعة الإسلام كإني تهيمد آد إياد وطبريان وآد إياد الليتر لكن أف صومالي ودون هي ما فرحدين ما أف صومالي بوربعين وضدك كالقدم ما شنو أف صومالي ما شريعة الإسلام كحيوبة هذا هي دليل مقارعة الحجة بالحجة الحجة اللي قرع اللي أي وبعضها لكن وذلك وعم مسندريش إنه ولا كيسن حديث فرقان يا آيات القرآن هو لا عدد ولا حساب أبا وحي تلمام هيان جبي أهم بوان ركتان مش اللي آدم بلا إبراهيم بلا إبراهيم بوصوتي إبراهيم دت آدم إلهي دتك ومدرين أبوه آدم إبراهيم إلهي دتك ومدرين إبراهيم بودري إبراهيم إلهي دتك أو موسى درينا موسى ودري موسى إلهي دتك أو موسى درينا وحوس ودري عيسى دتك وحوس ودري رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم بيت محاكوح البيت وذاتك كتري أو ولا يضيق إذا معي يا رسول الله يا رسول الله رسولك إلهي وجاهك أنك جاهك مالك أيضا إلهي وذكر شفيع قال سيقدر جاه هي عريد يدويا إذ وقت الكريم الله كريم كتجلى وكسف باسمك إذ الكريم تجلى باسم منتقم الله كريم كمالك وكسف باسمه سمنتقم كأرجوسك إلهي وجاه رسول الله محمد حقيقة عريرين وهيتسواي قوة وشفع عقاب يقدروي بلا بفيرات فإن من جودك إلهي وحكم عليك دار إلا باسم منتقم بيكون حناتها موت فإن من جودك إلهي ودار هذا وحكمله الدنيا الآن جبنا أيها كمله وضرتها باكبدا آخرة إذا أكسره الجلد أي الدنيا الإله كمده الدنيا دي باكمده وحانا كمده دار إله الدنيا دي باكمده رسول الله محمد بكسر عليه رسولك حدون لنا وحي كائن سواء إلا إيمان كريم بعد أن تصي بالويكا لي وآدي آبو في الصلاة إخوة في الله سياد غفر إنسان فإن من جودك إلهي ودرنا إلا باسم منتقم بيكون عند هاي ورسول إلهي وكهل هاي ولا يرضيك رسول الله جاهك به إذ الكريم وقت الله كريم وكسف باسم منتقم اسمه منتقم أبو يريم وقت فإن من جودك إلهي وعليك درنا وحكمنا الدنيا دي باكملة وضرتها آخرنا وكمل إلهي الدنيا دي موجود آخرنا وموجود ومن علومك إلهي وعلوم هذا وحكمنا علوم هذا وحكمنا علم اللوح باكمل اللوح علمي في باكمل إله أدين بقى والقلم
qalamka cilmigiisa ayaa ka mido ilaahay u adin baa haddana taagada saasuu beydku ku asaxaya oo waabad aragtaaba qasiidadu noocaas u socotaa bal rasuulkaba ka dhig bayna min juudika rasuul allah deeqdaada waxaa ka mida addunya adduunyadii baa ka mid oo kayfiyadii aan u camalfali lahayn aan u shaqaysan lahayn ilaahay u caabudi lahayn baad namartay wadaratahaa baa ka mida aakharana wixii aan ku camalfali lahayn oo diinta ilaahay ay naga amartay baad nabartay rasuul allah ومن علومك ومن بعد علومك من وتبعيدية هذا من تبعيدية اللي ولا كان هذا ومن علومك ومن بعض علومك علومك هذا برضه وحكمله علم الله وحبا كمل إلهي وكبر الله علم جنسا هي والقلم ومن بعد القلم لا كمل قلم فعلم جنسا بركمل إلهي ما كبره ومن حديث صحيح البخاري غير كثير أي علم ناشا عن الوحي يقوى يسمى كان ها جنة جنات يوحي كبه بلو نبو إلهي طالع سيئة ومتفيني ما هو البو إلهي طالع سيئة هذا كان وانو عاسي الله بيت كلا أيها جري ولادك أو أنتو كنتم طيئوا برن وايي أو معنين وايي أو يسوي سبيل الله من الأفصومال أنتو كشك تغير وكان قاقيمة جرت والله معي وحاول البيت كاكي ولادك كنتم طيئوا بالإستاغي وأوليه بيت كهر رأيبا بأبياتا هذا أنشيري فإن من جودك أيها رأيبا بيت كيسي أنا موالدين بالإستاذي وحر وأنا مرة تقصر الله تسيئا عادي هين الآن إذن كشر سيئا عادي هين إنا وحن دونها هي أن إذن كشر حسيئا قصر إلي ستان إخوتي في الله عشر كينا مانتا إنت إذا أيو كشر قبضرين الماء جبيهانا وأنت دوتان بإذن الله الداري قتيباً هل بردو الإستاذي دونا ما داموا إنتو دول الإستاذي هل بإليكا بيت كيسي أنا أويه كان أموما فضود با ووحا بغيراتي الله عليك أنت أوسن كجري ما داموا كتابك برdaha dhammaantii waa xadiis iyo aayad dhammaantii waa xadiis iyo aayad weliba waxaan dhihi karaa dhammaantii waa aayad qur'aana aslaynka buu waafaqsan yahay kitaabka qur'aanka iyo xadiidka rasuulullaahi maxamed buu waafaqsan yahay sidaa darteed waxaan dhihi karaa waa asaxu lkutubi bacda kitaabillahi kitaabka ilaahay bacdigi kitaab la tasdiifo ama lafdi lagu hadlo oo lagu dhawaaqo waa lafdiga ugu waafaqitaan badan kitaabka qur'aanka waa kitaabka ugu waafaqitaan badan kitaabka qur'aanka iyo xadiidka nabad galay ee saxiixa rasuulullaahi maxamed ka sugnaaday sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sidaa darteed waxaan leenahay wadaadku bitaacadiisa raqiiska ahayd iyo badeecadiisa kaasidada ahayd ee baartay dagaal ayaan ugu celinaynaa si uu uga soo jawaabo wasali allahuma calaa sayidina maxamed bin bahi lamiin wacala aalihi ayibiin alطaahiriin aad buu u mahadsan yahay fadiilatu sheekh faarax sheekh ibraahim sidoo kalena waxaan u mahad celinaynaa sheekh maxamed shible oo maaragtay isaguna dooda dhinaca ka ahaa maadaama aynu keennay cod ka mid a codadkii isaga uu duubay tan waa qeybtii koobaad waa taxane waxaanu soo gelin doonaa xilli kasta oo jimco ah haddii ilaah yidhaahdo ama aynu ka dhigan doonno maalin walba intaaynu joojisano howlaha kale ayaynu ilaa adigu inta inagu qaadato oo kitaabka ku dhammaado ayaan waxaan isku dayi doonaa inaanu shacabka labada tv ku kala xiran ka haqabtirno waxa uu yahay kitaabka burdaha ah oo culummada qaarna ay durtay qaarna ay difaacday iyada oo lagu difaacaya ayado qur-aan iyo axaadiis nebi ayaanu maaragtay halkan kusoo gudbin doonaa sheekh maxamed shiblena waxaanu rajayn doonaa markii uu videogan daawado inuu isagana inala soo xiriiro haddii wax uu ku durayo ay jirto kitaabka burdaha dhammaan shacabka ku xiran ee kumanaanka gaaraya labadan tv aad baan idin salaamaynaa waxaana idinkula dardaarmaynaa in aad subscribe saarataan like tiraahdaan wax walba oo lasoo dhigo ra'yiga aad ka bixisaan ood commenti ka dhiibataan sheertuna aad la wadaagtaan asxaabta aad la jeclaan lahaydeen inay ku xirmaan labada janal ee kale ah warbaahinta xogsuga media tv iyo janalka ahludiinka ah ee Somali Baaqir tv warsan ayaynu isku ognahay maalintan maalinteedii